ماشي ولا اجي بينا وقري معايا وزرزي كان لا بسعد ها كيف يا قدام وزرزي وبسعد انا مرتاح علينا سبحانه وتعالى مثل بعضنا محمد waxaan rabaa inaan markaan ku soo dhaweeyo gudoomiyaha naadiga ama kooxda kubadda cagta galmudug mudane cabdifataax cabdulaahi macallimiinta gudoomiye ku-xigeenka isboortiga gudoomiyaha olombikada iyo dhammaan marti sharafka sidoo kale waxaan salaamayaa saxaafadda oo ilaa caawa oo dhan sida annaga aan jecelnahay wax noogu qabanaysay bacdal salaan mudane madaxweyne waan kaaga mahad celinaynaa sida ballaaran ee caawa xafladda noogu qabatay oo dhiirigelinta leh oo sharafta leh oo qiimaha leh sidoo kale waxaanu jecelnahay wasiiradeenna oo aad iyo aad ayaantaan ayakuna dhexda u xirteen sidii aan u horumari lahayn aan ugu istaagi lahayn shaqooyinka iyo baahiyaha loo qabay isboortiga oo muddada dheer aan ognahay inay guryahooda uga maqnaayeen oo annagoo mas-uuliyiina ay naga sii jeclaadeen xilka aan hayno sidaan u shaqaynayna si u laba jibaaran ayakana waa u mahad celinaynaa sidoo kale waxaan u mahad celinaynaa saxaafadda oo ayakuna aad iyo aad noola shaqaynayeen jeclaayeenna waqti dheer inaan wax inuu iska bedelno sidii sanadkii hore aan meeshii aan ku harnay ama aan ku hingoowno aan ku hingoobin insha Allah markaan waxaan leeyahay dawladdu waxay noqotay dawlad aabale isboortiguna wuxuu noqday isboorti aabale sanadkii hore markaan imaanayna waan ogeyn maysi jirin madaxweyne noo dhiga asagoo jooga xamar xafladda noocaan oo kala waxaan mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad baanaan iloobi doonaa haddaan nahay isboortiga sida madaxweyneenu uu jecel yahay isboortiga iyo horumarkiisa waxaan leenahay mudane madaxweyne soo dhawow insha Allah sanadkaana waxaan naga dareemi doontaa isbedel weyn oo aan kala imaan doono garoomada warka ku badi maayo waqtiga iska qaliila insha Allah wax qabada waxaan lagu arki doonaa garoomaadka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ahna macalinka galmudug oo sanadka leeli doona dowladda karaan noqdo halkan waxaan ka salaamayaa madaxweynaha wasiirada afhayeenka
iyo gudoomiyaha gulmada olombikada iyo saxaafadda. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. mar labaad waxaan halkan u mahad celinaynaa madaxweynaha oo noo sameeyay cawada cashadan halkan runtii oo la soo koobi karin. runtii waxaa daal madaxweyne hortaada waxaa fadhiya ciyaartooyda mataleed galmudug sanadii hore waxay ku hareen groupka ay ku hareen laakiin sanadkan waxaan rajaynaa Abdullaahi Karaal noqdo hadduu Ilaahay eeba awood noo siiyo inaan koobka hortaa soo dhigno Abdullaahi Karaal noqdo. ciyaartooyda hortaada fadhiso laguma keenin qabiil wax laguma keenin nin kasta lugtiisa ayaa keentay meesha. runtii waxaana ka marnayn meesha cadaaladda. waxaan ku rajaynaynaa Abdullaahi gaarsiiyo inaan koobkaas meesha ka keenno. ciyaartooyduna waa ujeedaa waxay u baahan yihiin wixii agab ah waa la siiyay laakiin waxaa ka dhiman xagga moraalka. Abdullaahi Karaal noqdo waxaan rajaynaynaa support fiican inaan ka helno Abdullaahi Karaal noqdo. aad iyo aad u mahadsanyahay macallinka. بسم الله الرحمن الرحيم. xildhibaanada gudoomiyaha sportska gudoomiyaha ku-xigeenka gudoomiyaha Olombikada macallimiinta iyo dhalinyarada sportska ee Galmudug waa salaamantiin. mar labaad waxaan u mahad celinayaa madaxweynaha Galmudug casharafta noo sameeyay. madaxweyne waa kaaga mahad celinaynaa annagoo dhalinyarada sportska Galmudug. cashada ku xigta waxaan kaaga ballan qaadaynaa Ilaahay wax ballan qaadi karee inaan koobka meeshaan keenno. juhdiga iyo dadaalka nala geliyay awgeed waa ka fiicannahay sanadkii hore sanadkan waxaana ka heli doonaa koobka. asalaamu calaykum. السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد مدحوينها دولة goboleedka galmudug golaha wasiirada madaxda kale oo halkan fadhisa gudoomiyaha dhalinyarada galmudug afayeenka dowlad goboleedka galmudug macallimiinta halkan joogta kooxda u ciyaari doonto galmudug oo halkan caawa ay ku fadhiyaan ciyaartooydoodii iyo dhammaan wariyaasha ciidamada amniga. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. intaa kadib waxaan aad ugu mahad celinaa markuu horeyda madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug mudane Axmed Ducaale oo caaway dhalinyaradii ciyaartooyga u safan lahayd galmudug u sameeyay casa sharaf meeshaana ugu yeeray. waxaan rabnaa hal mar waqtiga kooban awgiis inaan dardaaran yar dhiibo. waxaad u ciyaareysaan waxay tahay state bulshada inteeda badan oo ama galmudug degan ama shacbiyan dadka ugu badan oo baalka muxuu ahaayay Soomaaliyeed ah dowlad goboleedyada dadka ugu badan oo Soomaaliyeed ah. waxaa la idinka rabaa magaca sidiin calana sidiin waxaa sidiin magac gobol iyo degmaba ah. horta marka hore waxaa la rabaa tookadii dhaweeto meeshaan ku harnay meel fiican maahan laakiin tookadan waxaan rajay doonaa indhihiinana iga muuqata inaad keeni doontaan koobka hadii Ilaahay inaad koobka keeni doontaan. sababtu waxay tahay dhaqaatiirtii waxay hortiina ka ballan qaadeen qofka wax gaaraan in la caawi doono. madaxweynuhu insha Allah ballan qaad kale uu suubi doonaa. annaga ka xildhibaan ahaanna waxaan suubi doonaa ballan qaadiyo kale oo waan garab istaaganahay. taageerayaasha reer galmudugna waa buuxi doonaa garoonka waa la buuxi doonaa hadii la yiraahdo. anigu waxaan ka mid ahay dhalinyarada dadka oo ku jira baarlamaanka. marka si gaar ah ayaa waxa ay taabanaya dhalinyaranimo marka dhalinyaro la sheego iyo sports marka laga hadlo si gaar ah ay taabanaysa. marka waxaan involved kuna annaga dhan inaad guuleysataan guushana Ilaahay aan ka baryaynaa. stage-ka ugu fiican aan hadda joognaa waa dhisanahay indhihiina si fiican ciyaartooy fiican la soo xulay. qof walba oo fakaraya ama qof walba oo ciyaaraya waxaa la rabaa inuu ku fakaro inuu dad iyo bulsho ama uu ka farxinayo ama uu baalka muxuu ahaayay uusan ka farxinayno ay ka naxayaan inuu ka dambeeyo. marka ummadiina farxiyo qof walba oo banooni laadaya ama qof raacanaya inuu mar walba maskaxda ku hayaa inuu dad support u yahay magacoodna sido maqaamkoodka. ana mahadsantiin. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. أولاً إلهي بقى مهد السجناتي ماشان سوكا كيني وحا مهد لبالله مدحوينهن قلمدق ستيد أحمد تعالى قيل لحاف وسوكا يري وقوشان قروح لبضان يحفلت دا النو سميي
aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa in sha allahu tacaala waana mudan yahay waxaa kaloo aan salaamayaa oo salaan kaliya laaba xildhibaanada wasiirada dhammaan in alla intii teetan leh waa salaamantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib mudane madaxweyne annagoo ah wasaaraddii dhallinyarada iyo isboortiga waxaanu in muddaa ku jirnay hawsha dhallinyarada iyo isboortiga ciyaartan meel fiican bayna noo maraysaa juhdi badan baanu gelinay wax badan baanu la soo legdanay waad aragtaa iyagoo qurux badan in sha allahu tacaala waxaanu rajaynaynaa inaanu meel fiican gaarno oo weliba aanu wax weyn keenno oo koobka gacanta kusoo dhigno maadaama caawa nooga sii farxad badan tahay oo madaxweynahayga oon hor fadhino oo maanta dhallinyaradii inuu la hadlo dhiirigeliyo madaxweynihii mar hadday hor fadhiyaan waxa weye waaba iska dhiirigelisan yihiin laakiin wax weyn baanu wax walba u ballan qaadnay haddana madaxweynahoodii baa hor fadhiya in sha allahu tacaala khayrna waa rajaynaynaa waxaan hadda marka rajaynayaa waan kusoo dhaweynayaa madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug siduu ugu hadalladeeda u yiraahdo waxaan kusoo dhawow kolay tafadal madaxweyne sanadkii hore contribution baan ka aruuriyay kunkii doolar ugu horeeyay anaa bixiyay dhagay baa iga qaaday anuu sanadkan waxaan waxba yaan la aruurin bal annagaa iskala jimicsanayna insha allah haddana aad iyo aad baan maaragtay ugu faraxsanahay inaan idin arko weliba waqti intaan ka fiican inaan idin arkaan rabi lahaa haddii ilaahay idmo maalinta isniinta oo cayaartu jirto waxaan aad isugu dayahayaa anigu galmudug baan tegayaa laakiin inaan inta soo noqdo galabtaas inaan joogo aad iyo aad baan ugu faraxsanahay haddii aan soo noqon waayana dee midda cayaarta ka dambaysaan midhaa iman doonaa ama meeshaan joogaa maaragtay guushu igu imaan doontaa waa ciyaaro ama waa la guulaysaa ama waa la guulaysan waayaa laakiin muhiimaddu waxa weeyaan meel xun lagu harin ya in la soo dhowaado haddii koobka la qaadi waayo kan ku xiga in la noqdo kan saddexaad almeeno haddii aad koobka qaadaanna aniga amaalmarin aan weligeed soomaaliya laga bixin baad leeyihi gool ninkii dhaliyaa $300 buu leeyahay kalsiyaana $200 buu leeyahay boortiyeerguna wuxuu ku helayaa amaalmarin hadba siduu u qabto goolasha lagu soo gabo anu waa aqaan meesha baharuu ka liitaan ama meesha maaragtay laga liito goolwaluhu waa very important waa ninka dhan oo celiya waa ninka dhan oo loo baahan yahay inuu wax badbaadiyo aniga waxaad haddii aad soo dhawaataan ama aad koob qaadaan amaalmarin la yaqaan oo weligeed soomaaliya yaad iga taqaanaa waxaan ku dadaalayaa inaan isbortiibooyinkii gobolka inaan aada uga shaqeeyo oo aan idinla shaqeeyo dhaqaale idiin raadiyo dhar idiin raadiyo kii jiran caafimaadkiisa ka shaqeeyo ayaan aad iyo aad ugu dadaalahayaa ilaahay kii dhaawacmana waa la daweyn doonaa insha allah aniga mas-uuliyadda isaara guusha haddaad keentaan oo boqolkiiba boqol keentaanna waa la yaabi haddaad soo dhawaataanna waa iyaduna waa sidoo kale oran maayo boqolkiiba boqole ya nacam ninkii gool dhaliya intaas ka siiyaana oo markaa uu dhalinayo u dhiibaana laakiin hal baa jirta yaa goolka la isku dhejinoo adigu dhalayaa la is oranin ya nin walba amaalmarin buu leeyahay kan bixiyaana amaalmarin buu leeyahay kan dhaliyaana amaalmarin buu leeyahay ya macallinkaa kuu soo haray macallinka asaga tiis waa wax kale ya insha allahu tacaala ilaa fiifaan geynaynaa dhar damba ma doondooni doontaan kaba damba ma doondooni doontaan nin jiran lama daaweyn waayi doono insha allahu tacaala aniga waxaa laydinka rabaa un si aad guusha ama guul soo dhow aad u keentaan boqolkiiba boqol guusha waa fiican tahay haddii la guusha la waayana waa la dhoweeyaa almeeno inaan maaragtay un
kooxaha soo haraya inaan ku darmano taasaa aad iyo aad muhiim ah inkastoo kooxaha adag noo soo hormariyeen haddana waa laydinka rabaa ya sidii aad maaragtay kuwaas aysan waxay idinka qaadi lahaayeen baa loo baahan yahay aad iyo aad baad u mahadsan tihiin waa idin soo dhawaynayaa waana idinka warqabaynaa iyo cabaalkiina iyo basaskiina iyo wax walba waa diyaar khayr bay noqonaysaa insha allah golaha wasiirada cashada qaadaya waana liido maanta cayaaraysiin inaan anaga iyo haweenkii dee galmudug aan meesha joogo biyo cabaalkiini iyo kawarqabkiini iyo dadkii daawadiina adinkaa ka heshiinaya aniga kan maana